السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلتي وناكسن خيارتنا داوانيسا idilkiin baa meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadaan idinkugu talagalnay maanta oo isniina taariikhduna ay tahay 27 May sanadka 2024 waa barnaamijkii labaad waa barnaamijka aynu kusoo gudbinayno macluumaadka wararkii ugu dambeeyay ee dhacay saacadii la soo dhaafay. haddaba intaynu kala maqnayn barnaamijkii hore iyo midkan inta u dhaxaysay waxaa dhacay sheeko ku saabsan in ay israsaaseeyeen ciidanka masaarida iyo kuwa Israa'iil. haddaba sheeko la yaab leh ayaa halkaa ku jirta. warbaahinta Israa'iil waxay leeyihiin laba askari ah dhimatay. afhayeenka militariga ciidanka Masarna wuxuu leeyahay hal askari ah dhintay. rasaasta yaa bilaabay sidee wax u dhaceen hadda maxaa socda. haddaba siyaabo kala duwan ayaa looga sheekeeyay arrintaas. haddaba ragga ugu culus ee ka hadlay aan barnaamijkan fakarkooda rabo inaan idinkula wadaago waxaa ka mid ah General Faiz Ad-Duwayri iyo waliba suxufiga weyn ee reer Falastiin ee yiraahdo Abdelbari Cudwan oo sheekooyin la yaab leh ka sheegaya arrintan. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu hayaa Israa'iil oo markii ugu horeysay sheegtay 24 saac ee la soo dhaafay tirada askarta wax kaga noqotay dagaalka culus ee ka socda Gaza gaar ahaan Jabaaliya iyo Rafah. xoutiyiinta oo maalmo kadib sheegaya inay weeraro cusub qaadeen galabta hagee ku da'een yay garaaceen iyana tafaasiil baan idinkaga hayaa. kulanti wanaagsan khiyaaray meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii labaad. waxaan idinkuga hayaa dhowr qodob oo muhiim ah laakiin qodobka ugu ballaaran ee aan rabo inaan idinkaga sheekeeyo waxay tahay intaynu kala maqnayn barnaamijkii hore iyo barnaamijkan inta u dhaxaysa ayaa dhacdo waxaa soo wariyay wariyaasha waxay leeyihiin ciidanka xuduudda jooga masaarida iyo kuwa Israa'iil ee macbar Rafah iyagu qabsaday bilowgii bishan ayaa israsaasay. waa kow haba israsaaseeyaane haddana askaraa la iska dilay. waa labo haba la iska dilay mid kala dilay waa Masri. waa saddex Masri haba ahaadee kuwa rasaasta bilaabay waa Masaari. sheeko marka isdaba taalla waa moogtahay. Masar sidee u bilaabaysaa rasaas? maxaa dhex maray askartii Masaarida iyo kuwa Israa'iil? sidee wax u dhaceen? wax badanaa la isweydiinayaa. maxaa xilligan kusoo beegay? waa su'aal meesha ku jirta. nimankan 17 bishii waxay tageen toddobaad ka hor ilaa 2 toddobaad ka hor ayay tageen macbar Rafah ay qabsadeen. macbar Rafah marka dhankanna waxaa haysan jiray Xamaas dhankanna Masar aad joogi jirtay weligiis. Israa'iil ma joogin meeshaas. markay galeen Masaarida waxba ma dhihin hawshoodii qabsadeen ilaa wadada Philadelphia la yiraahdo ay isku fidiyeen. Masaaridu marka hadda xabadda maxay u riday? ma amar dawladeeda ma askarta xabadda riday kaliya go'aan qaadatay oo ka carootay wixii ka dhacay xalayto Rafah oo u muuqda in dad badan lagu laayay. haddaba waxyaabo badan isku qarsoon. haddaba ragga wax falanqeeya wixii ay ka yiraahdeen intaana u gudbin marka hore niyuusyadu say isaga soo daba dhaceen iyo siday yihiin aan idin sheegaa. haddaba marka ugu horeysa waxaa soo dhacay news la leeyahay warbaahinta Israa'iil waxay sheegeen 2 askari oo Masaari ah in markaa rasaas ay ku dhacday oo ciidanka Israa'iil ay toogteen. mowqica la yiraahdo Wala ee Israa'iil leedahay ayaa sheegay in 2 askari oo Masaari ah la dilay kadib markii rasaas ay isdhaafsadeen ciidanka Israa'iil iyo iyaga meel ku dhow macbar Rafah ama xuduudda ah. joornaalka la yiraahdo Macaariif ee isagana Israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa sheegaya in askari Masri ah isaguna la dilay markii xabad la isdhaafsaday ciidanka Israa'iil iyo iyaga. halkan confusion ku jira Soomaa. warbaahinta qaar waxay leedahay 2 Masaari la dilay qaarna waxay leedahay mid la dilay.
labaa la dilay halaa la dilay kanaa la dilay waa kaas rasaastana waxay leeyihiin warbaahinta cibriga masaaridaa kow soo riday intaasay maraysaa waxaa hadlay marka afhayeenka ciidanka masaarida bal muxuu sheegi doonaa liin muxuu dhihi doonaa muxuu ka hadli doonaa haddaba aljaziira ayaa marka waxay leedahay afhayeenka militariga ciidanka masaarida wuxuu sheegay inuu dhankooda uu ka shahiiday sida uu yidhi askari deegaanka markaa xuduudda ah ee rafax afhayeenka hadalkiisu sii wato wuxuu yidhi waxaa shahiiday mid ka mid a ciidankeenna kuwaasoo qaabilsan ilaalinta deegaanka xuduudda meesha xuduudda dhirirka ah ee calaamadaysan kuwii qaabilsanaa inay ilaaliyaan oo rafax ayaa mid ka mid a uu naga shahiiday waxaana hadda wadnaa baaritaan ku saabsan sida ay arrintaasu u dhacday iyo rasaasta siday ku dhacday iyo sida xuduudda la isugu rasaaseeyey waxaasoo dhan ayaanu maaragtay baaraynaa ayuu leeyahay qaybtaas waa iyaga hal askariyaa naga dhintay dheheen masar askariguna wuxuu ku jiray askarta shariid xuduudi waxay leedaha laynka xuduudda askarta qaabilsan inay ilaaliso ayaa mid ka mida naga dhintay waa naga shahiiday toos marka isagu uma dhihin muxuu ahaa sababtaasu ku dhintay waa laga gardaran yahay kan ima dhihin wuxuu yidhi taxqiiqa la samaynayaa askartu samaynayaan saraakiisha waa la baarayaa macnaa sababta waxay u dhaceen shilka u dhacay intaas waa sila ognahay warbaahintii israa'iil iyo falcelintii militariga masaarida afhayeenkooda waxaa noo dhiman marka xukuumadda israa'iil iyadana maxay ka tiri awal warbaahintoodii ahayd iyo militariga meeshaana ciidankii israa'iila la sugaaba iyaguna maxay ka yidhaahdeen haddaba marka warbixinta iyagana laga qoray waxaa leeyahay ciidanka israa'iil waxay sheegeen inay wadaan xiriiro ay la leeyihiin dhanka masar si markaa ay uga wada hadlaan dhacdada xabadda la ysku weedaarsaday hay-adda wararka u faafisa israa'iil ayaa sheegtay in askari masri ah la dilay intii xabadda la ysdhaafsanayay ee ciidamada israa'iil iyo kuwa masar ay xabadda isku ridayeen haddaba ciidanka israa'iil waxay sheegeen dhacdadaasu xabadda la ysku weydaarsaday inay dhacday saacada ka hor waxayna ka dhacday xuduudda masar haddaba arrintu waxay yidhaahdeen iyaguna sida masaarida oo kale waxaynu gelinay baaritaan oo macnaha waa la baarayaa sida shilku uu dhacay idaacadda ciidanka israa'iil waxay sheegtay iyadoo soo xiganaysa saraakiil in dhanka masaarida ay yihiin kuwa xabadda bilaabay ee iyagu soo riday waaye meeshaa marka waxaan aragnay warbaahintoodiioo warka bilowday iyadoo dadka dhan aysan ogeyn warbaahinta israa'iila bilowday laba askariyaa la dilayay waa kaasi waa kadib afhayeenkii militariga masar hadlay wuxuu yidhi hal askariyaa naga shahiiday laakiin arrinta waa baaraynaa cidda dishay iyo cidda gardaraa lagu dilay midna mausan dhihin haddana askartii waxaa hadashay israa'iil oo waxay leeyihiin dhacdada meesha ka dhacday baaritaan aan gelinay waa baaraynaa sida ay wax u jiraan sida ay wax u dhaceen iyadana waa ogaanaynaa idaacadda ciidanka israa'iilna waxay leedahay rasaasta dhanka masaraa bilowday nimanka kanu israa'iiliyiinta way iska jawaabeen sheeku marka halkaasay tagtay sheekadu halkaasay marka ilaa hadda ku nusan tahay masarna war dheeraada ma soo saarin ciidanka israa'iilna war dheeraada ma soo saarin rasaas kalena la iskuma ridin labadii ciidanna 300 ilaa 400 mitir ayuu yidhi generaal adweyri ayay isu jiraan 400 mitir ilaa 300 mitir dee waa meel laysu muuqdo waaye way isu jeedaan waaye intaas marka waa newska waxaan rabaa marka inaan ka hadlo tacliiqa ama sida ay xogta markii ay heleen oo ay arkeen bal siday la tahay ay u sameeyeen oo ay u taxliiliyeen taxliilka waxaa la yidhahdaa qofka markii su-aal la weydiiyo oo uu sharaxo sida ay wax u dhaceen sidaasay ila tahay sidaanay ila tahay uu dhaho marka waxaan ku hormaraynaa marka hore generaal faiz adweyri faiz adweyri horaa idinkuu sheegay dee waa soo laabtay
استوديو فردي أحد خبير أنكستا أي وحكوي ديان أو دجال ميليتري واحد عواي وحال ويدي بعضها مصر كان علي كورا أركتي هذا maxay tahay sidee salka كويسة wuxuu sheegay marka waxaan ka cabiraynaa uu yiri wararka soo baxay Masar ma beeninin inay iyadu harsaasta bilowday Israa'iil miidiyaheeda idaacada ciidanka iyo waxa dhan waxay ku celcelinayaan rasaasta masaarida dhankooda ka bilaabatay laakiin ilaa hadda ma hayno dhahay miidiya dhankan kale ka jawaabay ama askartoodii oo leh annaga ma bilaabin iyaga bilaab marka wuxuu yiri marka sida muuqata muranka ma taagna taas hadayba dhinacii kale aysan lahayn annagu ma bilaabin marka taadii muran ma ka jiro macnaha waxaan ku cabiraynaa inay iyaga bilaabeen masaaridu inay bilowdaan marka ku cabiraynaa laba mid uu dhahay marka labo ayay mid tahay midda koobaad wuxuu yiri askarta Israa'iil way yahuudu way dhib badan yihiin way daandaansi badan yihiin way akhlaaqdoodu iyo waxa kan iyo markay dadka carabta arkaan si xun ay ula dhaqmaan wuxuu yiri marka aragtidayda waxa laga yaabaa askarta masaarida inay akhlaaq xumo iyo waxyaabo aan wanaagsaneyn ku arkeen inta caroodeen marka kuwa masaarida ay rasaas ku fureen taas waa mid xaqiisa marka isagu taama xoog badnaa wuxuu leeyahay waxa laga yaabaa midda labaad xoog badan askartan xalay majzaro waxa dhacay xasuuq rafax ka dhacay dad hilib amal loo solay waa la gubay waa ogtiin teedooyinkii lagu gubay dadkii Falastiiniyiinta hooyooyinkii ee caruurta inuu ninkani askartani xabadda furtay inay waxa ka caroodeen oo ay aad uga xanaaqeen ay sidaa daraadeed yahuudda meelaha taagan ay rasaas ku bilaabeen ay ku fureen taas marka waa midda xoog badan sababta waxa waaye wuxuu leeyahay askarta masaarida baaritaana sameeynayna askarigeena xabadda ma lagu soo riday mise ma ridin iyo waxaas kama hadlayaan ma ahana markii ugu horeysay sideedaba meesha weeraro ay ka dhacaan mar walba way ka dhacaan marka waxa u dambeeyay ninkii la dhihi jiray Maxamed Saalax oo jabhad magaciisa la baxday hadda ka hor aadii sameeyinta xuduudda galay askar yahuuda meel joogta nagta ka gelay ilaa 3-4 ka dilay marka mar walba meesha accident waa ka dhacaa laakiin midkan wuxuu leeyahay dhankaas aan u badinaa dhageysano marka Adweeri isagu fikirkiisa بالإسرائيلي وهو تحدث صهيب عن استعراض وهو الأرجح بات قريبا بين الجنود يعني الإسرائيلي المسافة 300 إلى 400 متر من حيث المبدأ الآن هل هناك حدث استفزازا ما وبالتالي رد الجند المصري حرس الحدود بإطلاق النار هل هو ردة فعل طبيعية إنسانية من الجند المصري بناء على المجازر تحديدا ما ارتكب بالأمس في منطقة المواصي إذا توضح هي في بعدين لكن السؤال ويه الدويري مركا يسوي هالكاسو لآذي لوضع mid tahay uu yiri aga aragtidaas u qaad wuxuu kaloo ka sii hadlay heshiiskii Camp David dhibaato inay ku keenaysay in kala la weydiiyay ma u maleynayo dhacay dhowr jeer Israa'iil laftirkeedu Camp David waxyaabo badan oo heshiiska ku jira la jabiyo dhacay hadda ma ugu horeyso xataa waxa dhacday uu yiri waa dhexe in diyaaradaha Israa'iil ay Sinai inta yimaadeen ay duqeeyeen ayadoo lagu marmarsiyoonay argagixisa joogto oo Masar u ogolaatay marka waxyaabo badan ay heshiiskaas looga dheelo leeyahay marka heshiiskaas meesha wax badan ma ka tarayo leeyahay taas marka waa ka gudbaynaa waa fikradii Adweeri ninka la yiraahdo marka suxufiga Falastiiniga Cabdilbaari Cadwaan isagu wuxuu qabaa arintan hala soo afjaro qabaa isagu waa sayf labood waay Falastiini caraysan waay dadkiisa la laayay majzarada iyo waxa meesha ka socda iyo xasuuqa aad uga caraysan waay ma baqo ninkaas wuxuu joogaa London wuxuu ka hadlayaa wax meesha ka socda wuxuu tifaftire ka yahay uu leeyahay journal London ka soo baxay oo la yiraahdo Ra'yul Yawm oo af Carabeed iyo af Ingiriis labadaba ku soo bax
وأننا عادي أحي مركب وحولي نكن ومركي لبعضه ليه لبعضه له جيسنا عيدا كمسارد هذا كور برج المراقبة أما ماشى كورة وحلقها جو يجو صارنا وحلقوا رفتي عسكرها كلمة توير وركودي والاسك دوب مال على الدقي هذا عسكرية حبط انت لو ردي على الدلو يري ديج عسكري شهيد كأ دولة واحد ربطها سمايسو لكن عيدا كواينه وأرجدانو يري صاحب كود ولا الكود يهود أيدي شيء وهو إنه أرجودي دوران محوي هيو رحي هشيس كلا إلى علينا كان ديفيد محوي تضرب أسكرتي بديلي ساي يهودي أيده هشيس بيل على النسبيا مدة كلا وحن كلا يابو يري مصاردا سفير كي إسرائيل قاهرة جوجا محوي جوجا ويروح أنا دعاية به وروح أصبح الذي كيلا ما هني نكه الله أرجودو تاجي أصلا يهود ماشي توقت نكتك الجلية ما أنت تشانس وايوراي جيش المصري وحواي جيش قوي وايوراي حوجا مسكحد يا كاليسن مسكحد وادتكو جامية حوجا ورسن لكن عيدا كمسارد وعيدا جيسيارو في عن ما أنت وفرصة وإن نبكي حبض سوري ده معبر رفح جوجا إن نكتك الجلسان معبر كفرتان oo aad dadka dhaawacyada iyo dhibaatada qaba ee la laayay ee mushkilada ku haysto reegasa ka soo saartaan daaweysaan nimankan meesha ka raacdeysaan saaxiibkiin walaalkiin shahiidka ana u argudaan u leey waaba spiritka ka muuqdo waa yaabasa ay dhigaysiyo Abdulbari Adwan كانوا بعد 7 أكتوبر بعد طوفان الأقصى قتلوا جنود مصريين استشهدوا في برج مراقبة قرب معبر رفح. طيب الآن كمان هاي ثاني مرة طب ليش بدي مر دم هذا الجندي الشهيد بدون ثأر؟ حقيقة ايش بتعمل اتفاقيات كامب ديفيد؟ ايش بيعمل السفير الإسرائيلي في القاهرة؟ يعني أقل شيء انه هاي فرصة للحكومة المصرية انها تفتح المعبر رغما عن الإسرائيليين وعن الجيش الإسرائيلي، والجيش المصري جيش قوي وجيش بطل وبيستطيع انه يفرض كل شروطه وانه tahay marka sheekadaas halkaas ay ku nasan tahay wixii waray ka soo kordha Masar iyo Israa'iil dhankooda waa arki doonaa waxaan u gudbaynaa Xuutiga iyadoo ay noo soo socdaan qasaarihii ugu dambeeyay ee Israa'iil ay qiratay dagaalka ka socda Jabaaliya haddaba Xuutiyiinta maxay sheegeen saacadii la soo dhaafay waxay leeyihiin weeraro cusub ayaan qaaday haddaba wixii laga qoray ayaa halkan idin kula wadaagayaan waxa leeyahay Xuutiyiintu waxay bartilmaameedsadeen laba kamida maraakiibta yaryar ee dagaalka ee Mareykanka waxayna ku weerareen badda cas afayeenka militariga jamaacada Ansaarullah Xuutiyiinta Yaxya Sariic waxa uu sheegay war uu soo saaray inay bartilmaameedsadeen laba kamida maraakiibta dagaalka ee Mareykanka oo marayay badda cas waxa uu dhanka kale sheegay inay bartilmaameedsadeen 3 markab oo mid kamid ah uu Mareykan yahay waxana uu sheegay mid kalena uu yahay Israa'iili kuwaasoo marayay badda la yiraahdo badweynta Hindiya Xuuti waa soo jeest Xuuti marka uu maqan yahay meesha wax ma marooyaan wax marida ma jirtaa u maleeya markay maraakiib soo marto waa ku daaya isaga wixii gantaal iyo diyaarada uu haystay roobka uga dhigaya kaartadiina way ku socotaa ogaada kaartada markii maraakiib in la weeraro la rabo waxa la aamusiyaa oo nagta laga geliyaa ciidanka Mareykanka ee waxbaan waardiyeynayna dhahay hadda u fiirso marka ugu horeysay la weeraray warbixinta waxa ku horeeya labada markab ee Mareykanku leeyahay nagta laga geliyay nag awd markay noqdaan oo Allah u bixi ay yiraahdaan goormay wax u gurbanayaan markaas waxa loo socdaa adeeg kale in la qabsado la rabaa shaqo kale badweynta Hindiya waxa looga daba tagay lagu weeraray markab Mareykanku leeyahay mid Israa'iil leeyahay halkaasaan nagta uga galinoo yiri Yaxya Sariic waayahay ayaduna sheekadaas halkaasaan ku joojinaynaa wixii warara ka soo kordha waa arkeynaa waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkaygii labaad sheeko cajiib ah
wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya gaza waxay leeyihiin dagaaladu way socdeen jabaaliya iyo weliba iyo halkan kale rafax way ka socdaan nagtaa weli laisku hayaa israa'iil waxay leedahay waxaan idiin sheegaynaa tirada 24 saac ee askari ee maaragtay wax nooga noqotay gaza waxa aragteen oo taangii la baabiiyey waxa aragteen oo askar nagta laga geliyey waxa aragteen intay noo sheegeen bal aan dhageysan adiga yaabay waa tahay ciidamada Israa'iil waxay sheegeen in ay ka dhaawacmeen 23 askari oo ciidanka Israa'iiliyiinta ka tirsan dagaalada ka soconaya Gaza 24 saac ee la soo dhaafay militariga Israa'iil ayaa sheegay in askar ay kaga dhaawacantay 23 dagaalo kala duwan oo ka dhacay marinka Gaza saacadihii 24 saac ee la soo dhaafay dagaaladii dhacay 23 askariya naga dhaawacantay dheen wax dhintay mar sheekadaas marka waa la socotaan marka nimankanu hawshaasay sheegteen intay sheegteen ay meediyuhu marka ugu wadaan falanqeeyaashu laakiin waxay yiraahdaan iyagoo qoslay waxay yiraahdaan haddee sheekadaasu inaysan sax ahayn waa fahmaynaa ilay marka barnaamijkaygii labaad intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa wixii fakar iyo aragti aan qabtaan noogu soo qora qaybta fariimaha iyo commentiska barnaamijkana like garay oo share garay haddaad nagala socoto Facebook iyo YouTube haddaad nagu cusub tahay subscribe sar YouTube-ka Facebook-kana follow garay inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno khiyaaray nabadgelyo